waxaa ku jira ruux jaakada isku dul qarinaya saas daraadeed meeshaas wax kala ka socda ay dad ku dhaheen subxaan allah yani waxay ku fakareen wax kasto qalbigooda ama shaydaan ugu sheekeeyay ayay bulshadii la hor imaadeen gabadhaasna xumaan ayay ka faafiyeen daayarta Soomaaliyeed inteeda badan waa dad wax ku eega isha dajaalka safaaradaha Soomaaliyeed iyo jaalidaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in la isu taago si islaamnimo ah si Soomaalinimo ah si insaaninimo ah in gabadhaasi la garab istaago oo la caawiyo meel kasta adduunka ka sugan tahayna in la keeno insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalahayow ilaahay dartiis baa inii jecel lahay meel kasta adduunka joogtaan Allah ina karaameeyo muuqaalkan waa muuqaal aan isleeyahay jawaab guud ha u noqdo muuqaalkii ka faafay gabadhii muslimada ahayd gabadhii Soomaaliyeed ee wiigii la soo dhaafay isbuuci la soo dhaafay baraha bulshada adduunka dhan wada haystay muuqaalkan waxaan ka rajeynayaa walaashay ama walaalkayow inaad meel dheer gaarsiisid waa muuqaal aan isleeyahay yani rag aan meeshaan ku sheegi doono oo ka qawleysta xumaanta kaliya inuu jawaab guud u noqon doono insha Allah ta'ala haddii aan sii dhex galo barnaamijkeena maanta gabar baa isbuuci la soo dhaafay aad loo hadal hayay muuqaalkeeda la wadwaday yani meel kasta lagu sheegareynayay qof walbana ra'yigiisa ku cabirayay ra'yigiisa qaldan qof walbana ku cabirayay yani maskax saxiixa ama maskax sax ah ama aqli saliima lama kor istaagin yani qof walbaba wuxuu wax ku fiirinayay il aad u qaab daran marka muuqaalkaas oo ka hor adduunka haystay isbuucu Soomaali soo gaaray ka hor ayaan waxaan jecelahay in qalbiyadaadii furtiin insha Allah ta'ala gabadha Soomaaliyeedna loo wada hiiliyo loo wada istaago insha Allah ta'ala bishaaro maamulka sare ee Healthgate Hospital wuxuu ugu bishaareynayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi iyo nawaaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waayo aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka Healthgate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Muratina Road ka soo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda saddex qodob ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkayga maanta saddexda qodob ciwaanka guud waa sirta ka qarsoon ee gabadhan arrinkeeda la xidhiidha arrinka labaad waxaan ku dul istaagi doonaa dad aan u bixinay shahwaaniyiin dad shahwadooda ay maamusho hamigooda uu maamulo yani xaalad abuurna sidooda u taagan dadkaasna kelmad kulul ayaan dhihi doonaa iyo qeybta saddexaad oo ah baaq gurmad iyo duco aan gabadhaas u duceynayna insha Allah ta'ala marka waxaan ka rajeynayaa mawduuca xaqa ah inaad sheegareysid si uga daba tago kii baadilka ah ee faafay qodobka koowaad aan rabnaa inaan gabadhan arrinkeeda isku dul taagno gabadhan waa gabar Soomaaliyeed sida in kaga muuqata muuqaalka waxay ku dayacan tahay oo ay joogtaa meel kamida yani wadamada qurbaha meeshay tahay ma naqaano laakiin gabadhan sida nooga muuqata waxay joogtaa meel koona ah meel luuqa darbi gurigiis ayay ayadoo gaariga dadka curyaanka ay wataan ayadoo wadata dharkeedii iyo qalabkeediina meesha u saaran yahay ayay yani meeshaasi ku jirtaa
dabcan ruux baana muuqaalkaas ka duubay. marka koowaad waxaan rabaa bal muuqaalkan in ay la aragtaan, laakiin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan in ay ula aragtaan isha saxda ah, qalbiga saxda ah ee qofka muslimka uu leeyahay. yacni daniga wanaagsan adoo qaadanaya, qalbigaaga adoo xumaan ka kilin garaynaya, inaad muuqaalkaas ila eegtid, waxa kaaga soo baxana insha allah commentiga inagula wadaagtid. ma sax baa sidii xumaan faafiyaashii ay faafiyeen, mase waxaa saxa sida gabadhaas muuqaalkeeda saxdaa ka muuqata? bal aan wada daawano, aan falanqayno insha allahu tacaala, kadibaan ayada oraah ka dhihi doonaa iyo kuwii kale aan soo sheegayba. dabcan muuqaalku waa qaab daran yahay, ma sii wada day karno, iimaankeena nama wada siinayo inaan sii wada dayno. Allah made you siblings for a reason. Be kind to your sister, be kind to your brother. As you xumaanta ka raadsay muuqaalkaas fiuska ka raadinayay waxay dhahayeen gabadhaas gadaasheeda waxaa ku jira ruux, waxaa ku jira ruux jaakata isku dul qarinaya, saas daraaddeed meeshaas wax kalaa ka socda ayay dadku dhaheen. subxaan allah, yacni waxay ku fakereen wax kastoo qalbigooda ama shaydaan ugu sheekeeyey ayay bulshadii la hor imaadeen, gabadhaasna xumaan ayay ka faafiyeen. okay, gabadhan sida inooga muuqataa waa gabar xanuunsan oo curyaana. gawaaridii curyaamadana way ku fadhisaa, ficilkay samayneysana qof xanuunsan ficilkuu sameeyey ayay samayneysaa, wax kale ma jiraan. wax kalaad aragtaan, waa ficil qof xanuunsan uu samayn lahaa. qof xanuunsan maxaa laga fishaa? qaar wax wanaagsan sameeya iyo qaar wax xun sameeya, soo maaha? marka gabadhaas sida inooga muuqata, marka koowaad way xanuunsan tahay, marka labaad waa curyaan, marka saddexaad waa homeless ama dadka guri la-aanta ah weeye, oo dibadahaas ama qurbaha ku tabaalaysan oo ku dhibaataysan weeye. gabadhaas marka sida nooga muuqatay saxda ah waa xanuunsan tahay, waa curyaan, waa guri la-aan. qof meeshaas ku jirana lama arko abadan. markay istaagta gabadhaas fiirsha, ilaah baan ku dhaarshe, gabadhaas markay istaagta fiirsha inay curyaantana waa kuu muuqataa, gadaasheedana jaakada taala inaysa cidna ka dambeyna waa arkaysaan. qofka faafiyey, gabadha xumaanta ka faafiyey, ilaah kugu dhaarshay maxaad aragtay? gabadhaas maxaad uga jeedaa? wuxuu shaydaan kugu sheekeeyey mooye ma wax kalaad u jeedaa? subxaan allah, subxaan allah. gabadhaas warkii kooban way xanuunsan tahay, waa guri la-aan, waa curyaan, jaakadana ama dhabarkeeda wax ka dambeeya oo ku jira ma jiraan. warkii kooban waa intaa kadib waxaan rabaa inaan orahyadan kula hadlo dhalinyaradaas aan u bixiyey ama aan u bixinay shahwaaniyiin. daayarta soomaaliyeed inteeda badan waa dad wax ku eega isha dajaalka, oo dajaal waa wada taqaanaan, sharaxaad badanna uma baahno, waa ruuxa ilaahay laga magan kalo shartiisa. daayarta soomaaliyeed waa sida tixsigi oo kaleeto ama tiqsigi saad u taqaanid, jirka wuxuu ka eegtaa meesha dheecaamaysa, meesha nugul ee dhaawaca ah ayuu eegtaa, meeshaas ayuuna ku degtaa, dheecaanka wasaqda ayuu ka dhuuqaa. sidaasoo kaleeto daayarta soomaaliya intooda badan waxay wax ku eegaan ama wax ka arkaan ama ka qaniimaystaan, yacni qeybta shaydaanku u xawilo ee dhanka xun ah. daayarta soomaaliyeed intooda badan waxay cagta saareen wadadii halaaga. daayarta soomaaliyeed intooda badan waa dad tawfiiqdii laga qaaday. daayarta soomaaliyeed inteeda badan waa dad qalbiyada ka wada jiran, ishoodana xumaan mooye wanaag ma aragto, miyirkooda ama qalbiyadooda waxaa dilooday shahwo. daayarta soomaaliyeed intooda badan waxay wax ku eegaan ama wax ku qaataan daniga xun, wax kastana waxay ka istaagaan malaha xun.
daayarta Soomaaliyeed inteeda badan wax kuma qiimeeyaan maskax shaqaynaysa iyo caqli fiyow sida dhalinyarada kale adduunka maskaxdoodana uma umaalaan wadankooda laakiin wax kasta wadankooda dhaawacaya diintooda dhaawacaya ay intooda badan ka shaqeeyaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee gabadhan aragtay ama taqaana waxaan ka codsanaynaa gabadhan in ehelkeeda iyo qoyskeeda qaraabadeeda lagu raadso haddaan la garanaynin waxaan qof walba ka codsanaynaa gobol kasta degmo kasta wadan kasta joogtid in gabadhan la raadso muuqaalkaas quruxda badan ay leedahay waa gabar xanuunsan qof walba Soomaaliyeed ee muslima waxaan ka codsanaynaa gabadhaasi in si degdeg ah loo soo raadso ehelkeeda qoyskeeda iyo qaraabadeedana lagu raadso haddii la waayana in muslimiinta guud ahaan wax u qabtaan la caawiyo oo la garab istaago safaaradaha Soomaaliyeed iyo jaalidaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in la isu taago si islaamnimo ah si Soomaalinimo ah si insaaninimo ah in gabadhaasi la garab istaago oo la caawiyo meel kasta adduunka ka sugan tahayna in la keeno insha Allah taala ilaahay waxaan ugu baryaynaa in gabadhaasi iyo guud ahaan qof walba muslim ee xanuunsan in ilaahay caafiyo gabadhaasna xanuunka haysta oo ka dulqaado ehelkeeda iyo qaraabadeedana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay ishaleelaan. Excuse me, can you tell me where I can find the gluten-free pasta? Oh, I'm not sure. I don't work here. But I think... Aren't you going to show me where it is? وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.